بسم الله الرحمن الرحيم وبرنامج كني تعالى تاريخ أصحابتي محمد عليه الصلاة والسلام وحين سوق عندنا مانتا أصحابي قال هذا جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب وحكم إذا أصحابتي محمد عليه الصلاة والسلام نبقى لنا قرابة هان أدبيس كل وين وحي هاين الماضير جود هاري عبد المراف وحشري شنن والنبي عليه الصلاة والسلام ذو أكها qof ka indhaha waxba aad ugu arkayni wuxuu u maleyn jiray oo isku qaldi jiray oo hadduu mid arko midka kale inuu isaga yahay buu moodi jiray. shanta asxaabi nabiga calaysha salaam aad ugu ekaa waxay ahaayeen Abu Sufyaan bin Haritha bin Abdul Muttalib oo rasuulka calaysha salaam ilmaadar ahaayeen dhinaca naas sujuudana walaalka ahaayeen. asxaabiga Abu Sufyaan aad bay nabiga calaysha salaam isku ekaayeen. asxaabiga labaad isku ekaan wuxuu Qusaym بن عباس بن عبد المطلب ورسولك عليه الصلاة والسلام استغرق المعذر هاين استغنى آد بيسكو اكاين حق موقالك كاستحاد اسكو اكاين هو صايب ابن عبيد وإمام الشافعي أو وهاب اسنا آد بيسكو اكاين كافراد اسكو اكاين هو حسن بن علي بن عبد المطلب ورسولك عليه الصلاة والسلام أو وهاب ويننتيسي آدشه شان تقفي رسولك عليه الصلاة والسلام ويكا حسن بولي بآد وسيكا. أصحابي شناد النبي عليه الصلاة والسلام ويكا وحوها جعفر بن أبي طالب وحول الله يا نبيك مؤمنين علي بن أبي طالب مركا النبي عليه الصلاة والسلام استغنى وحي هاين الماضير أي هاين. أبي طالب وحولها عرور بدن أبار يا مركا دعضي أبارتي وحي كينتي انتدكي مع البدن أي هليشو وحي عنان أي وايان ilaa lafahooga ay baariyoobaan oo markaa ay ku dhawaadeen inay wax kasta ka soo baxaan. waqtiga reer bani Hashim waxa uu dhaqaadan roona nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo adeerkii Abbas bin Abd al-Muttalib. nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa adeerkii Abbas wuxuu ku yiri adeer walaalka Abi Talib oo Jacfar abihi carruur badan ayuu leeyahay abaarna way dhacday oo gaajo ayaa jirta carruurta aynu barka qaadno anigu wiil ayaan qaadiye adiguna mid kale qaad. عباس يري وناق أيادي وياردي مركان النبي عليه الصلاة والسلام وكله يا عباسو أديركا أدير بنشده ولا الخاين أبي طالب عروب بدن بلي حيين عروته كخلا قاد أديكنا من قاد أنا من بن قادي نبي ديوي السعودين وحاول تجينا أبي طالب أرنتينا ووشجن أي طالب سنو وقراضي النبي عليه الصلاة والسلام وحقاطي علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب أيقاطي والنبي عليه الصلاة والسلام وكري عباس ده حقاطي جعفر بن أبي طالب. رسولك صلى الله عليه وسلم أيوة لتشوقي مركا علي مركي النبي عليه الصلاة والسلام صادر أنه عرور تقفك يقوه الرئي النبي عليه الصلاة والسلام الرمية. جعفر مركا ذلك عباس أيوة لتشوقي إلا وكافتومي وويناري. جعفر ذلك رسول الإسلامي النبي عليه الصلاة والسلام رمية أيوة كمدها حاسيسي أسماء بنت عميسنة وعلى سوء إسلامته. waxuu markaa islaamay oo gacanta wuxuu ku soo islaamay gacanta Abu Bakar wuxuuna islaamay nabiga kaleey salaatu wasalaam ka hor intii uu gelin gurigii Daar Arqam bin Arqam loo jiray. Jacfar iyo xaaskiisa Asma aad baa loo dhibay saway ku samreen oo dhibaatadii loo geystay way u dhabar adeegeen islaamiyadoodana way sii haysteen. ugu dambeyn Jacfar xaaskiisa iyo kooxahay waxay u jireen dhulka Xabashida. Salama وحاسكيسي هذا حشاكتي مركي جارن لك حبشة إن شعرنا نقدم تدون أحسن ودين تودا يكون أمين كران. علىنا يستحور وعابد كران قريش مركي مقشي إن لك أصحابتي جارين وحيودر اللبن وحجوين وكلها عمر بن عاص يا عبد الله بن الربيعة. لابد إنه وحي قادين هذه ظفر بدن ويوسد مكان نجاشي يددكيسي بطريقتيسي تاجر سنة ما رمى إسلام. marka dhulka xabashida soo gaadheen waxay la hadleen bataariqadii najaashi ama dadka u dhadhawaa marka isaga uu maamulayay ka amar qaadinay heegadiisa waxa tusaalahan waxay markaa u dhiibeen wixii hadiyada ay hayeen waxayna ku yiraahdeen dhulkan boqorka waxa soo degay inamo kuwa yagii oo naga leexday oo diintii abayaashoodii iyo wayaashood ka leexday boqorkii ayaan hawshooda kala hadliyay hanoo garaado. waxay ku leeyahay boqorka hawshooda aan kala hadlay nimada naga soo ambaday ee abayaashoodiyo adeeradoodiyo awayaashoodiidi dadku u dhawaamo bataariqadiiba waxay ku yiraahdeen waayahay salaam waqtigaas eegaysi waxay tiri ma jirin waxaan ka nacbaa
camar iyo saaxiibkii in najaashi mid naga mid ihi uu yeesho uu dhageysto. marka dabadeed labadiina waxay u tageen najaashi bay u tageen iyagoo hadiidihii markaa u geynaya. waxayna ku yidhahdeen boqorow waxa madaxtooyadaadan yimid koox ka mid ah inamadeedii sharwadayaasha ah. waxay la yimaadeen diin aanan garanayn annaga iyo idinkuba. diinteydii way ka tegeen, tiinana may soo gelin. waxaan ku soo diray tulkood kuwa ugu sharafta badan si aan ugu celino. kaasina waa kuwa dadka ugu ogsoon waxa ay wadaan. tulkoodii waxa kuwan kula socday ku yimid waa kuwii ugu aqoonta badnaa uguna sharafta badnaa. marka waxaan kaa codsanaynaa inaad carruurtaanimada naga ambadeed noo soo celiso. dabeed najaashi waxa uu eegay bataariqadiisii. bataariqadii ayaa tiri run bay sheegeen boqorow. macnaha dadkii taageersanaa yani garabkiisa ahaa buu eegay. bataariqadii waxay markaa ku leedahay run buu sheegay boqorow, waayo tulkood ayaa aada u ogsoon waxay yihiin u celi. boqorkii wuu ku xanaaqay hadalkii bataariqada. wuxuu markaa ku yidhi wallaahi celin maayo ilaa aan u yeedho oo aan weydiiyo waxa laga sheegayo. haddii sida aad sheegaysa inay tahay waalidiin dhiibi, haddiise ayna ahayn inta ila joogayaan waan wanaajinayaa jaarnimadooda. dabeed waa loo yeedhay, way soo galeen. waxay markaa isku sii yidhaahdeen boqorku diinteenna ayuu inaga weydiinayaa iyo waxaan rumaysanahay hala hadlo jacfar bin abi aalib, qof kale ayaanu hadlin. markaa jacfar hala hadlo jawaabaha isagu markaa ha siiya bay yidhahdeen. umu salama waxay tiri najaashi ayaanu u tagnay, waxaanu aragnay bataariqadiisii oo hareeraha bidix iyo midigba ka fadhida. waxaa kale ag fadhiyey camar binu caas iyo cabdilaahi binu rabiica. markaa way ag joogeen labadaasiba oo waa nimanka lahaa markaa noo soo celi. cabdilaahi binu rabiica iyo camar bin caas waxay ka mid ahaayeen dadka bataariqadii dadka mataqaana ee ugu waaweyn quraysh ee aadka markaa loo ilaaliyo. markaa waxay tiri markii ay golihii fadhiisanaya waxaa noo eegay bay tiri najaashi oo yidhi waa maxay diintan cusub. markii uu u yeedhay wuxuu ku yidhi markaa waa maxay diintan cusub eed qaadateen iyada daraaddeed aad uga tagteen diintii tolkiin eeydaan u soo goynin diinteeda iyo diinta kale toban. jacfar ayaa hadalka qaatay wuxuuna yidhi boqoro waxaanu ahayn dad waqtigii jaahiliga sanadii caabuda, meydkana cuna, xumaantana la yimaada, qaraabadana gooya, jaarkana xumeeya, ka xoogooyini wax ka qaato ka daciifka. sidaa darteed ayaanu ilaa ilaahay noo soo diray subxaana watacaala rasuul aanu garanayno nasabkiisa, runtiisa, ammaanadiisa iyo dhowrtanaantiisa. alle keligii inaanu caabudno ayuu noogu yeedhay. waxaanu ka tagnay wixii annaga iyo aabbayaasha baanu caabudi jirnay, alla sokodiyo oo ah dhagaxaan iyo sanabyo. wuxuuna amray runta, ammaanada, xidhiidhinta, qaraabada, wanaajinta jaarka iyo xumaanta in la iska daayo. wuxuu noo diiday markhaati beenaalaha, cunida xoolaha agoonta iyo in hablaha dhowrsoon xumaan lagu gano. wuxuuna amray in alle keligii caabudo oo anaanu shirki yeelin, inaanu salaada tukanno, sakada bixinno, ramadaan soonno, waanu rumaynay oo waanu aaminay wixii noola yimid ayaanu raacnay. waxau noo xalaaleeyey ayaanu qaadanay, wixii naga xaaraantimeynayna waanu iska diinay. boqorkayow tolkayo way nala culoobe, waxa ay cadaabeen wayna cadaabeen si ay diinteeda nooga fitnayaan oo ay noogu celiyaan caabudintii sanamyada. markayna dulmiyeen oo ayna qasbeen arrintii nagu celiyeen ay annaga iyo diinteeda kala dhex galeen, waxaanu soo baxnay waddankaagan, ciddii kale oo dhan adiga ayaanu kaa soo dooranay. waxaanu jeclaysanay inaanu jaar kula noqonno, waxaanu rajo ka qabnaa inaan agtaana lagu dulmin doonin. umu salaam waxay tidhi najaashi ayaa daymoodo jacfar wuxuu ku yidhi wax ma ka garanaysaa waxa uu nabigaasi la yimid. jacfar baa yidhi haa waan ka garanaya. najaashi baa yidhi akhri. jacfar wuxuu bilaabay inuu akhriyo aayado qur'aana. wuxuu akhriyay aayadaha ugu horeeya suuratu maryama, kaaf yaa haa cayn saad dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya. dabadeedna markii uu najaashi maqlay aayadihii wuu ooyey ilaa garkiisa ooyey ka tifiqlaysay. qur-aankii uu maqlay daraadii. najaashi waxa uu yidhi kan uu nebigiinu la yimid waxa uu la mid yahay wixii uu la yimid nebi ciise. dabadeed najaashi wuxuu daymaaday camar iyo saaxiibkii waxuu ku yidhi iska socda, wallaahi nimankan idiinma dhiibay. umu salaam waxay tidhi markii aanu sii baxaynay waxaa noo hanjabay camar iyo saaxiibkii oo yidhi wallaahi berri ayaan boqorka u imanayaa oo raggu wuxuu uga cadhoodo ayaan buuxin oo ku dhowriya u sheegin oo xiidada ayaanu siibay. cabdilaahi binu rabiica ayaa ku yidhi sidaa ha samayn camarow, waayo qaraaba ayaynu dadka nahay, haba inaga duwanaadaane. camar baa ku yidhi iska daa, wallaahi waxaanu ka horramay wax dhulgariirka ku noqda oo lagahoodu la gariiraan, wallaahi waxa aan odhan
waxay sheegayaan in ciise binu maryama uu addoon ahaa. markii aroortii la gaadhay ayuu camar u galay boqorkii Najaashi oo ku yidhi boqorow kuwana soo dhaweysay aad ilaalisay ciise binu maryama waxay ka leeyihiin hadal weyn u yeedho oo weydiiyey waxay ka leeyihiin. Salama waxay tidhi waxaanu isweydiinay waxaan nabi ciise ka odhan doono haddii boqorkuna weydiiyo waxaan isku waafaqinaano wixii uu alla ka yidhi. dabeed waxaanu isku waafaqnay in arrintaan u dhiibno Jacfar bin Abi Talib. dabeed Najaashi ayaa u yeedhay way u galeen iyaga oo fadhiyaba taariikhdiisii weliba qaabkii maalinta hore u fadhiyo oo kale. waxaa ag fadhiyay Camr ibn Caas iyo saaxiibkii. Salama waxay tidhi markii aan u galnay waxaan weydiiyey maxaad ciise binu maryama ka leedihiin. Jacfar ayaa yidhi waxaanu ka leenahay waxa uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ka yidhi. Najaashi ayaa yidhi muxuu nabigu ka yidhi. Jacfar baa yidhi wuxuu ka leeyahay waa addoonkii alle rasuulkii iyo kelmadii uu alla ku tuuray maryama. Najaashi dhulka ayuu gacanta ku dhuftay isagoo oo leh ciise waa sida nabigunu sheegay. dabeed Najaashi waxa uu sheegay inay iska socdaan oo iyaga oo markaa ammaana. labadii Camr ibn Caasna way baxeen iyaga oo hoogay. Jacfar ibn Abi Talib iyo xaaskiisii waxay Najaashi la joogeen 10 sano iyaga oo nabad iyo ammaana. sanadihii 7 ayuu Jacfar u soo hijrooday Madiina aad baana loogu farxay oo loogu soo dhaweeyay. sanadkii 8 waxa uu galay dagaalkii Mu'ta. dagaalkaas ayuu ku dhintay Jacfar bin Abi Talib. geeridiisii nabiga aad ayuu ugu naxariistay salaatu wasalaam. gurigii xaaskiisa ayaa ka hadhay Jacfar ayuu tagay markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam. Jacfar gabadhiisii ka hadhay Asma ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam gurigeedii tagay. caruurtii Jacfar ayuu guriga ku samirsiiyey isagoo aad ugu ilmeynaya oo uga tacsiiyay geerida ku timid aabahood. sidaas ayuu ku shahiiday asxaabigii weynaa Jacfar bin Abi Talib Allah u naxariistay. qisada noocaas waxaynu ka baran karnaa asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam siday diinta ugu adkaayeen gaar ahaan taariikhda Jacfar bin Abi Talib. waxaynu ka baran karnaa inuu ahaa nin aad iyo aad diinta ugu adag aftahana ragga iska celiya diinta Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa ay markaa halka ay leedahay u odhan kara ragga la socdana difaaci kara iyo waxyaabo kale oo badan. insha Allah waxaan jeclahay intaan kusoo koobo waxaan jeclahay asxaabtiina si wadaagtaan dhammaantood maasantii.